xifdinta shay waa aqoonta kaliya aad ku faanayso ama aad ku meel mari karto waxaa jira siyaabo wax loo xifdiyo muhiimadu waa inaad xifdidaa shayga ha noqdo aayad quraan ah ama xadiid ama arrin kale ku gaar ah haddaan u daadegno labada arrin ee ugu waaweyn qaabka wax loo xifdiyo horta aan wax yar ka taabano qaabka maskaxdu ay wax u qabato ama ay wax u xifdido maskaxdu waxay wax ku qabataa laba wado in dhaguhu ay u gudbiyaan cod ama in indhuhu ay u gudbiyaan sawir ama muuqaal waana labada wado ee ugu waaweyn ay maskaxdu wax ku qabato waxa adag cod muuqaal sawir dhowr jeer ku soo noqnoqday in maskaxdu ay ilaawi weydo tusaale markaan ku dhaho waxaan daawanayaa TV-ga waxay maskaxda soo tuuraysaa sawirka TV-ga waxaad dareemaysaa macluumaadkan inay maskaxdaadu kaydisay marka aad rabto inaad xifdido aayad quraan ama xadiid waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad codkaaga ismaqashiiso adigoo isticmaalaya cod dheer waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad arki karto aayadda quraanka ama xadiidka haddaan milicsado muhiimadda ay leedahay inaad shayga eegto oo aad isha kaga bogato مثلا سؤال بان كويدينيا waxa lagu yiri suuratul asr quraanka xagee ay kaga jirtaa waxay isla markiiba macluumaad maskaxdaadu keenaysaa halka ay suuradu quraanka kaga jirto mabog bay ku bilaabanaysaa mise way ku dhamaanaysaa iyo inta ayadooda ka kooban tahay waxaad halka xaqiijinaysaa hubaal in maskaxdaadu ay macluumaadkan ay kaydisay hadaba waxaad u baahan tahay waqtiga aad xifdinayso shay inaad hesho jawi degan aan lahayn shanqar iyo buuq maskax degan aan lahayn daal akhri indhaha ka buuxso oo eeg shayga aad xifdinayso